دعوة رمضان شهر سعادة يا رمضان حاجرتي دورة شيء جرت أول سنة كراية لكن دوب لهن داشة أكو دمايو كسو علبا والله تعسي هرت هذا waxaa u malaynayaa sidii ayada aan tirada ay ahayd iyo qaabkii ayada ee markaasi ayada ku salaysnayd doorashadii hore ee duubka qiimaha lahaa ay ahayd marka ninka la qaadanayo oo xildhibaanka ah waxa la dhihi jiray waa inuu duubkiisa soo qadimaa saxiixa weliba duub ma tahay maha 135 ee loo yaqaano traditional leaderska ma gartay duub shub laakiin ma buk ee maaha kuwa baartay Abu Bakar weyne ee maartay iyo duub iska soo qaadanay maaha hadda laakiin waxa waaye macal duub la dardaraysa هي داشكي حلوان ninkii rabale waa ku soo dumaynaga ee mugta aan soo dubadan ma alles la dumi dubki mangartay ayaa yimid dad oo yaa marka waxa waay marka ninkan dawlad goboleed wadanin daasha ku dumay way aadan 19 ice cream xarunta ugu tayada wax soo saarka fiican geeska Afrika ice creamka aadan 19 waxaad ka helaysaa wadamada geeska Afrika xarumaha aadan 19 ice cream waa goobo aad loo qurxiyey isla markaana ku soo jiidanaya mar waliba xusuustaada ice creamka ku haay aadan 19 marun booqo xarumahooda kala duwan ee geeska Afrika aadan 19 السلام عليكم رمضان الكريم waxaana la joogaa Professor Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo runtii haliyay bulshada Soomaaliyeed ay wada jeceshahay caawa asaga ayaa la afurnay anigii Atooshare wuxuuna sameeyay casuumaad kal iyo laab ah oo runtii aan laftirkeena aad iyo aad hadda ka hor social media waxa dhex socota maalmahan nin oday oo dhahay xildhibaan la afuray waxaan malaynayaa waqti aanan dheerayn madaxweynayaasheenii qadarinta mudan ee qiimaha lahaa madaxweyne ka mid ah ayay laftirkooda ayagoo la afuray waad aragteen oo ama ay la joogaan oo dhexda uu maartay uu fadhiyo madaxweyne Sheekh Shariif maartay hadee caaw dalxa waxa malaynayaa isaga meel madaxweynayaashii rasmiga ah oo naftirkiga adab yarshidaynin oo 3 bilood oo madaxweyne maartay ku meel gaar ah wadanka soo ahaa hatta waxa waaye diblomaasiyiin hatta ma ka marnayn caawo yaani runtii aan ka xusi karno ambassador Kalmeeyo asaga runtii mashquul ahaayo laakiin nala qaatay dhalinyaradeena qiimaha la soo dhaweyntooda marka farxad bay ii tahay waa u jeedaan Professor Xildhibaan hore nin mas'uul Soomaali weyn ay aad u wada taageersan tahay gurigiisa inaad soo booqano farxaday noo tahay xildhibaanka waxaan ku farxay gurigaaga markaa imaanay baarti way qaybtaadi VIP dan u casuuntay qaybta kale oo martada nama geenin afur ajiib ah noo sameysay anaga wax walba waa duubnaa mugta qaybta kamerada waa ka ilaalin bartokolka ilaalinay waa ku faraxsanahay inaan la joogno Professor Maxamed Cumar Dalxa caawina la afurno runtii waa shakhsi qiime iyo wanaag badan leh waana xildhibaanka bulshada xafladaha dhalinyarada ardayda cid kasta ayuu runtii xildhibaanka garab qabtaa oo ma garab taagan yahay marka caawana inaan caaw la afurno wax weyn inoo tahay Atoosh haye marka asxaabta waa u jeedaa farxad nooma dhimna xildhibaanka bulshada nin haliyay ah wax walba waxa la meel ka maqnaaw ama ka muuqo Dalxa inuu waxa og dadkii xiligaas oo joogay wax qabadkiisana ka warqabo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waa siyaasiyiinta midka loogu jeclaa inuu ahaa aadna loo jecel yahay waliba waxa jeclaala mar kale inaa madaxweyne rasmi ah laga dhigo oo wadanka Allah maadaama 3 bil wadankan ku sii madaxweyne ka yahay geelay laga fakayay aygan wax soo ogola beerleyn wax uma ogola geelay aygan wax soo ogola beerleyn wax uma ogola iyo xeebelay marka waxa ay idinka la ku soo heshiiyay leenahay marka Professor Dalxa bulshada lagu xasuustaa bulshada Soomaalida markii oo dibadda la tago waa isku duubayeen markii dalka la joogo waa kala khubkhubeen qabiil u khubeen markii dibadda la joogo waa isku duubma Soomaaliyeed nin kasto wuxuu qof af Soomaali ku
hadlaa waraadina kii xitaa ku dhashay wadanka ku dhashay ama kii Yurub ku dhashay ama kii America ku dhashay hadduu tuulo joogo tuuladaas qof dhig Soomaali oo kaduu arko bursana wuxuu leeyahay warkaale Soomaali jecel ku jiro wadankii marka la joogana qofkii qabiil iyo xildhibaankaaga yaaba iyo haddii meel afadhiisto waxa uu leeyahay adiga inta ka siko markuu talagalay qof kale qof hebel qansax loo talagalay marka arintaas xasatoob waa su'aal runtii aad muhiim u ah aniga horta 16 sano ayaan baarlamaan Soomaaliyeed ku soo jiray 2 sano iyo bar Imbagati ragii fadhiyaan ahayn xilligaas madaxweynihii ugu horeeyay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah yarxamu ayuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka marka Shariif Xasan ayaa noo noqday ana ku xigeenkiisii koowaadaan ahaa tan iyo waqtigaas oo marxalada adag la soo marmaray marba meel la taagnaa haddana fursad marka la yiraahdo dibad shirar ha looga qayb galo oo xubin baarlamaan ama gudoon baarlamaan soo martay waxaan filayaa wasiir arrimaha dibadeed oo kale shaqo ayaa maartay aniga ayaan soo maray malaha 50 iyo dhowr dawladood markay ugu yartahay oo Mareykan ku jiro oo Ingiriiska ku jiro oo France maartay مثلا dhowr state ayaan Mareykan ka booqday oo ilaahay ku mas'uuliyadda New York aan ka degay markaasaan Minnesota iyo dhulkan Soomaalida ay u badan tahay oo dhan ilaa iyo Washington Virginia South Dakota waxaan ku leeyahay Ohio يعني marka Europe sidaas oo kale يعني Italy Switzerland maartay Talyaaniga ilaahay ku mas'uuliyadda Belgiumka waxaasoo dhan يعني iyo wadamo kale oo Europe ah meel allaala meesha aniga aan ka dago Soomaali wallahi alcadiim waxaan uga abaal sheeganayaa halkaas ayaa maanta ayaa la isaaray soo dhaweyn oo aan yani Mareykan markaan tagay waxaan arkay habeen waxa ay qaabilay aqoon-yahano habeen siyaasiyiin habeen ganacsato habeen gabdhaha Soomaaliyeed yani maba aanan nasanin tuur ayaa la ii sameeyay ilaa anaga ma gartay xuduudka Canada la keeno ma gartay yani runtii ma ilaawi karo Michigan dhulkaas oo dhan maray ma gartay haddana Ingiriiska markaan aan ka tagay wallahi airport waxa iga qaaday Sadiq John ma gartay oo markaas safaaradda oo Shambulusna uu ka ahaa maartay si hay asagana markaas wadanka gudaha ku soo baqdaa يعني dadkii Soomaaliyeed soo dhaweyntii 8 saac iyo bar habeenimo anoo markaas uu hotelka uu iseexiyay asagana safaaradda Soomaaliyeed uu joogay ayaa waxa yimid gabdho Soomaaliyeed oo isla socda oo intaas soo reerad ka kooban oo ayaga isugu kay barsantaan ay yiraahdeen dalxa yimid marka nala yiraahdo soo wargelinin aroosaan joognay waa soo jabsanay oo la hotelka adiga degan tahay sidan aan kugu nimaado xilligan Soomaali ayaan kugu soo dhaweynayna magaceeda anoo habla Soomaaliyeed hatta gabdho Djibouti ku jiray yani ma ilaabi karo dadka fiir Soomaalida sida la isu jecel yahay wadamadan Carabta sidaas oo kale hadda waa baarlamaanka Carabta aan ku jiray Suuriya tag Sacuudiga tag Urdun tag Liibiya tag Tunis tag Morocco tag Bahrain tag يسي سودان اسكبر dhaaf ana wax ku soo bartay misana dhowr jeer aan tagay yahay ilaa iyo Indonesia Malaysia Korea magartay Iran wadamadaas oo dhan ayaan Afrika ilaa Senegal maartay ayaan tagay qof Soomaali Rwanda waxaan arkay nin iyo xaaskiisa isla socdaan Rwanda Kigali annagu habeen annaga iyo xilwaana kale isla socono wayna gudbeen meel Soomaalida hatta ay ku yartahay gabadha iyo wiilka aan soo eego isweydiin ma laha Soomaali mar haduu dalxa dhex fadhiyo war dalxa wuxuu iska ahaaba aniga nin Ilaahay ii barakeeyay dadka Soomaaliyeed dalxa nin hadee la weydiinayo ma Soomaalida iskeen bar aniga inta ka shaqeynaa dad waxaan nahay sida yani dad Soomaali oo shaqada ay haystaan iyo kale kalgacaylka ay ka muuqdaan waa runtaada waa ku raaxsanay xasanto Soomaalidu dibadda sida ay iskugu jecel yihiin inkastoo marmarka qaar khaladaad ay dhacaan laakiin wanaagooda ka badan dadnimadooda waa mid aad aragtay ayaga ay ku gaarayaan inay ka mid noqdaan Congress-ka Mareykanka ee gabar Soomaaliyeed ay gasho meel fara badan ay ka muuqanayaan waa aragtay Canada iyo meel aadan inta ku heli karin waa
aad maanta adiga aad meesha deegaankaaga iyo dalkaaga iyo dadkaaga oo sharci ku siinay inaad wax ka noqotid inta lagu yiraahdo maya dadkaaga iyo adiga no ma gartaya ninkii aniga aan rabaan meeshaan diid ama diidan asagaan kaaga dhigaya maartay inuu adiga kugu matalo dad haysato. shirkadda Riham International Company waxay idin keentay cabitaano tayadooda aad u sareeyo. Riham Apple, Riham Mango, Lavita Pineapple, Skyview Orange iyo Energy Drink. cabitaanada Riham International Company ka doono jumlo iyo tafaariiq xaruntooda Bakaaro iyo goob kasta oo ganacsi ah. cabitaan dhadhan leh u doono Riham International Company ama kala xiriir wixii faahfaahin ah telefoon nambarada shaashada idinkaga muuqda. xagga dad Soomaaliyeed oo lacag isu ururinayo magac Soomaaliyeed si loo muujiyo ayaa leeyahay Xasan Top ayaan wadanaa dad Soomaaliyeed reer Minnesota waxay ka tageen wax la yiraahdo reer hebel ma gartaya caalamkii bay la qabsadeen reer Chicago reer waxa waaye reer Istanbul yani Turkiya intaasan tageen ilaa Ankara xagee degantahay maana qofka lama dhahay yaad u dhalatay halkaasaan ka deganahay Talyaaniga reer Roma nahay reer Torino nahay waxa dadka marka sidaasi ayaa waxay ku daydeen dad oo ilbax ee adduunkii bay la sii qabsanayaan dadkaas wax bay fahmeen haddana way dareemeen markaad dalkaaga ahayn adiga aad joogtid yani waxa kugu dhalanayso Soomaalinimada si jeclaanaysa markaas markay dal hadaadan lahayn qof jiramatid dunyada la mid tahay marka waxa waaye runtii Soomaaliyeena dibadaha joogo qurbaha joogo runtii 80% ani waan amaanaya 20 ka day doonaha iska qastaan oo waxa iska xoogaa yar meel waliba waxa waaye afartoo habaab ah oo wax iska qasayso magaca Soomaali laakiin miday ayaga wax u dhimi karaan ma waa laga badan yahay marka aniga taasi xageeda runtii la isma barbar dhigi karo Soomaalidu haddii Kenya adiga aad tagtid say wax u qabsanayaan waad aragtid dhaqaalaha ganacsiga ay qabsanayaan South Africa way iscaawinayaan laakiin mushkiladda haysata waxa way dalkooda markay ay joogaan waxa ka zaid calaynayo weli dadka aanan ka ilbixin qabyaalada Soomaalida berigii hore waxa moodaa hadda loo baahan yahay in markii wax la bartay laga gudbi lahaa inayba u sii noqonayaan wax ka daran wixii hore sababtoo ah waagii hore waxaad maqli jirtay aniga magaalada walweyn la yiraahdo ku dhashay dad badan oo ama mudug ka soo jeedaan asal gadaal oo aan adiga aadan garanayn halkaas ay kiimal u dhahay ama waqooyiga Soomaaliya ka soo jeedaan ama Soomaalideena kale ama ilaahu may kilinka shanaad ama Soomaali galbeed ka soo jeedaan ninkii reer Daafeed waxa la dhigi jiray wariyaa aawi taafidu aawi hadii asaga beeshiisa uu tago uu ka yimid dadkiisa uu aado hadii baydhaw ka tago wariyaa aawi Ali Bay hadii uu asaga uu kismaayo uu dawaro ina wariyaa aybil kismaayo yani waxa waaye naaneesiyada ma gartay xagga walaaleen reer waqooyi Djibouti waxay u yaqaanaan Xamaraawi laakiin wali reer waqooyi waxa waaye wala weyn tabaartay ay yiraahdaan wadkii referendumka oo ayaga xamartaan caasimada codka ay ku noqotay waxay u badnaayeen maartay codkii laga bixiyay wala weyn marka dadka sidaas oo kale Ali Jawhar Ali Kismaay Umar Galkayood Hibil Saas Ali Wardigley dadka sidaas ay dadka markaasaaba la jeclaa ciyaal banaadir ay lagu leeyno ciyaal orfan yani waxaan hadda laakiin anaga reer Hibil baanahay reer Hibil almiina hatta hadii noogu sii daraan hatta ay yiraahdaan aniga reer Koonfur Galbeed aan ahay aniga reer Galmudug aan ahay aniga reer Hirshabelle aan ahay aniga reer Puntland aan ahay aniga reer Jubbaland almiina hatta qabiilku anaga yaraan lahaa maqtay taas li hadda deynoo dabaqaan waxbaynu ahaan lahayd laakiin 4.5 ku sugaysa Allah na mooti aad u maasay professorka caawa dhamaanteen waxa farxad noo ina durdurmeedii ka soo wada muuqano anagoo gurigiisa joogno isla markaana waqti badan isla qaadano sida hore u sheegay professorka durdur waxa ka soo muuqday dad culculus oo waaweyn madaxweyne hore Sheekh Shariif iyo madax kale sidaas la midana professorka maadaama uu yahay xildhibaankii bulshada mas'uulkii bulshada oo ku maasantahay sida noo sharaftay afurka aan ugu sameysay